kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba meel kasta daafaha dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka Fiyaadi Fagaaraha oo toddobaadkiiba mar aad ka daawataan boggeygan Cabdifataax Yuusuf Beereed. barnaamijkeena galabta waxa aan diiradda ku saari doonaa shaqo la'aanta baahsan ee haysata dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaasi ama taasi oo sababtay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka niyad jabaan waxbarashadii kadib markii dhalinyaro badan oo wax bartay ay shaqo la'aan noqdeen. barnaamijkeena galabta waxaa marti iigu ah Professor Axmed Salaad Kulmiye oo ka mid ah barayaasha jaamacadaha Xanaano iyo Balaasmo ee magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Professor Axmed Salaad Kulmiye ku soo dhawow marka hore barnaamijka Fiyaadi Fagaaraha. Assalaamu calaykum. waxaan rabaa Professor su'aasheeda ugu horeeya inaan ku weydiiyo taas oo ah shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed marka hore si guud maxaad ku micnayn lahayd? dhalinyarada Soomaaliya shaqo la'aanta haysata waa situational waa xilliga Soomaaliya ay maraysa ayaan ku macnayn karnaa. Waniga waxa uu ah xaaladaha Soomaaliya nolol ahaan iyo siyaasad ahaan bulshada Soomaaliya ay ku sugan tahay. waxaana ay ka timid geedi socodka nolosha Soomaaliya oo ay dagaalkii sokeeyay ku ragaaday xilli dheer ay ku jirtay 30 sano iyo wax la mid ah. muddada dhan oo ay socotay haddana waxa ku soo biiray abaarihii ay sababtay roob yaraantu. arrintaasi waxay keentay dalankac dhankii beeraleyda oo beerihii ay kala kulmeen dagaalkii sokeeyay lagu jahayntii iyo kumbilaantii in beeraha laga shaqaystahay ay dhibaato u geysatay dagaalkii sokeeyay iyo labo webigii qudhigiisii oo biyihii marna fatahaya marna la weynayo sababtuna ay tahay qorshe xumo iyo dawlad hanaanisa oo arrintaa ku haysa gacanta aanay jirin oo si fiican wax uga qabata iyo tii xoolo dhaqatada oo iyadiina inta roob yaraani ku dhacday masaw uu ku dhacay ay miyigii ka soo hibaadeen nambar badan oo dhalinyarahay suuqa la cakiran yahay weliba 10 sano hadda ugu dambeeyay aad u simeeyay xaaladaas. qofkii marka wuxuu isu bedelay dayday sida dugaagii kale uu dhalinyarada uu raadinayo wuxuu maanta ma bari maanta waxa uu cuno kaliya today. arrintaas marka waxa weeye xilliga aan ku sugannahay ayaa doorkaas ayaa keenaya nolol xumada dhalinyarada ku sugan tahay. iyagu inay aad u muuqdaan inay nolol aysan haysan inay aad u muuqdaan waxa sababayo muujinaya bulshadii ugu badan yihiin. waxa la yiraahdaa boqolkiiba 70 Soomaalida iyo 5 wax weyn leeyahay meelaha 65 ilaa 70 wax u dhaxeeya ayaa waxa lagu qiyaasayaa inay tahay dhalinyarada wax da'doodu 30 ka yar tahay 10 iyo 2 ka weyn tahay meelaha toban. marka arrimahaas ayaa asal ah waayahay shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed 10kii sano ugu dambeysay waa waxyaabaha ama mowduuca ugu hadalhaynta badnaa ama ugu saameynta badnaa asbaabaha keenaya markaad eegto ka Professor ahaan xiyina aslada ama keena shaqo la'aanta asbaabaha sheegay oo hore ayaa gundigu ah laakiin waxa wehliya oo soo raaca aadna loogu baahnaa in wax lagaga qabto qorshe dawladeed ayaa maqan la leeyahay dhalinyaradii iyo dadkii oo dhani waa in meherad la helaa. weliba waxaad arkaysaa wasaarad iyo cid kastaba oo xil loo dhiibay noocaasihi wax qorshaa oo arrintii lagu beegsanayo oo qorshe siyaasadeeda oo la leeyahay dhalinyaradii waa noocaan maxaan tallaabo ka qaadnaa inaanay ay dhagaha dhalinyaradana ku soo dhacayn qaran ahaan aysan hadda ugu muuqaan oo aanan meel walba kala kulmayn meedii iyo wax walba. arrintaas waxay keenay rajo xumo qofkii dhalinyarada uu arkaayo inaan cidina u maqnayn. waxaad garanaysaa hadda Muqdisho oo kale markii ugu dambeysay hadda waxa la yiri waxa taagan sheeko la yiraahdo kacdoon dhalinyaradii yarka ah oo magac la siiyay muxuu ahaa magac la siiyay oo midiya toorey inta la baxay islaamaha ku sameeyay ciyaal weero wala yasaya waxa la waa ciyaal weero ma jirto Soomaaliya oo la yiraahdo xil dhalan gartay weyn ah haddii qofkii dhalinyarada uu dareemo in ciidamada idin maqnayn asagii dhalaan waliba qaan gaarin macnaheedu waxay ku tusaysaa saaxada baahidu intay la xoog eg tahay waxay kaloo ku tusaysaa saaxada amni xumadu intay la xoog eg tahay waxay kaloo ku tusaysaa saaxada
rajada bulshadu ay ka qabto mustaqbalkana inay liidato intuba marka arrimahaasi waxaa muujinaya yani intaasaaba markhaati kugu filan iyo mid kaloo la macnaa qaataya qaado adiguna waxay arkaan dhalinyaradii wasiiradii iyo diijiyaalkii iyo maarayaalkii waxay dawlad ka shaqaynayay oo dhan oo qof walba gurgiisa inta fariistay oo ciidan isku waardiyeeyay bulshada dhexdeedii iyo wax ka dhex soconaya midna aanay ka dhex muuqan saaxadii oo dhan wixii oo canshuur uu dawladdu helay oo dalka laga soo helana iyagii ay cunayaan marka iyadaa laga tago waxaan bixinay kal hore xamar oo kale waxaa ka taagan shay kala yidhaahdo dadka xamar ku noola shacabka maanta waxaa caloosha uga wada fadhiistay hal mar oo dhib ku wada haya 5 kooxood kooxda hore waxaan u bixinay wasaaradihii baa nin walbaa wixiisii inta dhuuqayo meel ku cunayaa bulshadiina shanqarta ka dhex yeeray iyo dhibaatadii tixgelin ballaaran lagu male la siin maayo waxaa ku xiga nimanka la yidhaahdo shabaabley shabaabkeena inta soo dhaqayba wuxuu ku leeyahay kan lacagta bakhaarka yimaado hortiisa waxaa ku soo xigsaday haddana liba daacishley daacish ayana timid oo dhinaci kale sii lacagta canshuur dawladduna canshuurtii dhinac ka qaadayso ministerialka wixii canshuur ay heleen ayna guryahooday ku cunayaan nin walbaa waddada u taagan yahay bajaajleyaa ku xigsato sida tiqsigii meel walba cararaysa cid walbana ka kooban oo wax walba qasaya markii u dambaysay haddana waxaa soo baxay ciyaal weeraaley markay arkeen ciyaalkii cid u maqan oo gaari inaanay jirin dhinacoodii ka raacaan waxay goobi karaan inay goobaan ay ka shaqaynayaan يعني واحد اللي يذكر معها انت مركي اللي تشوي واحد صبح هذا هذا بقارله كيشكا بركا اي سنكرته وصاريا وحن لغا ودا قاداي ودا اما الدوله ها قاده اما شباب ها قاده اما داعش ها قاده اما جيني ها قاده اما عيال ويرها وحي wax laga qaaday oo dhan kiishkan uu saaraya marka sicirkii kiishka ayaa bulshadii wuxuu ku noqonayaa intii la rabay in aad uga badan security la'aanta darteed iyo wixii ayaa la xisaabtan xumo iyo kala daadasho badan oo dhacday arintaasi marka waxaan u bixinay leey ilma leey 5 baqaar leey ugu dambeeya baqaar leey wuxuu ka qayb qaadanayaa isaguna dulmkii bulshada la dulmiyay laana sicirkiiba kor u sii qaadaya asna waa dulmi baa ku socda asna wuxuu dulmayaa sicirkiiba ku dulmayaa bulshada waxba la kala gada karay marka ascaartii kor isaga soconaysa qof walbana shaqana ma jirto hada huwa mushkila in ay micno beesho shahaadadii aqoonta dhalinyaradii soo qaateen oo qaar ka mid ah xitaa baraha bulshada la socoto ay gubayaan arintaasi way jirtaa siyaasad u jirtaa waxay ka wadaan baraha bulshada inay ku gubaan waxay ka wadaan mudaharaad bulshada inay tusaan wadciga haysta dhalinyarada nooca uu yahay cidda toos loo tusaaho koobaadna waxa weeye dadka dawladda xubnaha madaxda ah ee dawladda laga bilaabo DG ilaa wasiir ilaa prime minister ilaa madaxweyne dadka la tusiya shoogan waa iyaga oo la rabo in la yiraahdo maxaad soo kordhiseen ugu soo kordhinaysaa haddana meesha labaad ee nabarku ka taagan yahay waxa weeye dadkii jaamacada ku wada yaaceen iyagoo rumaysan jaamacadda markuu ka baxo qofkan uu professional noqdo inuu helayo shaqadii helideediina kuma xira qofkan professionkiis kuma xira oo maxay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay 4.5 waxbarashada cid su'aal meysay waxa la weydiinayaa reer hebel ma tahay 0.5ka iyo 5ka iyo 4ka iyo xagee ka raacdaa dhankee ka timaadaa so wasiirkaad u soo gashay wiilkii 4kiisa ama beeshiisa ahaaba wuxuu raadinayaa kii aan beel meel wax ku lahayn waxba ma hayo okay wasiirkii 10 shaqo oo soo dhacday oo beeshiisa u reey 10ka wasiir oo beelaha wuxuu kala waxay arkeen luflufka karaaniyaasha u kala turamiya shaqo noqonaya waa magac xumo iyo corruption iyo dhaqan xumo way ziyaadaysa bisma kalma qofkii dhalinyarada marka wax baranay wuxuu ka bilaabayaa su'aasha haddii aan wax barto oo shaqadii markii joornaalka aan lagu qorayn wixii yaraayo la helay oo tartan xalaal ah inaan ku tartamo aan la ii ogolayn dibadna waxbarashadu maxay macna samaynaysaa yaa wuxuu baranayaa waxbarashada waxay ahayd inuu beegsado qofku inuu shaqo ku helo okay hadduusa markaa shaqadii helin xitaa jaaniskii ha qancee tartan xalaalihi ma jira ha ku qanco qofkan tartanka xalaalka hortiisa inuu wax ku waaye marka haybada waxbarashada kor ku cilaaday tartanku xalaal yahay qofku wuxuu dhihi lahaa tartana lagaaga badiyay waxbarashada kor u qaad wuxuu dhihi lahaa baaj baad qaatay master ku dar wuxuu dhihi lahaa baaj dil si raadi wuxuu u dagaalami lahaa qofku inuu waxbarashadiisa kor u qaado
si hanka uu ka qabo inuu wax ku helo oo shaqada ay u xalaalowdo oo goormay xalaal noqonee waa markii si rasmi ah oo xalaal loo tartamo tartan daahfuran uu dhaco tartan daahfuran ma jiro la xisaabtan dhaba wasaaradii la leeyahay tartan daahfuran haddaadan samaynin waxba ma doora kartid waxba ma xiro kartid lama arko dhalinyaradiina marka wax kala ka maqan dhalinyarada waxa ka maqan doorka xalaasha wax ku heli karaan dalka ayaga iska leh inay ka bilaabaan oo inay war qoysnimo noo shaqaymayso wax ku heli meel intay soo yimaadaan war shakhsi hebel ahaan aniga inaan kaliya inta cararo meelaha ka raadiyo cid reex of recommendation wax ku heli maayo waxa xalaasha waxa weey inta isu soo baxno gudigeena samaysano inaanu sharcigan maxaa ku qoran in xuquuqda loo siman yahay waxbarashada waa noor yaala corruptionka wasaaradaha ma yeelin wasiirka tasarrufku yeelaya ma naga yeelin saacad baarlamaan ma ka yeelayo in aduguna wiilka hayso tiraa shaqaha la iigo kulligeen xaaraanad ka shaqaynaysaa ma in ka yeelin kaliya waxaan yeelaynaa hal wasaarad oo biyatooni qori karta aan tartan loo gelin ma yeelayno caqligaas markuu soo kordhay la soo baxaan cid kasta oo wax qaldaysay gadaali u degaysaa waxay ogaanayaan dalku inuu dadka ka dhaxeeyo dad la xisaabtamaya inay joogaan qarannimadii baa macno yeelanaysa wadadii xalaasha loo raadinayay baa la helayaa system dawladeed oo nidaam la beegsanayo waa nidaamka aan beegsanayno dimuqraatiga ah raad yeela lahaa wax xalaalaha la keenin wax lagu heli lahaa markaasna waxbarashadu wax yeela lahayd door horu kacay yeela lahayd hadda albaabkeedu inuu raqiiso dhalinyarada waxbarashada ka cararaan waxa keena kawsada ugu culus ma aha opportunity-ga fursadda la'aanteed kaliya ma aha waa musuqa oo saaxada ku jira wax lagu raadinayo aanay ahayn qofkii inuu wax ma yaqaan la oranay waayahay professor jaamacadaha dhuusamareeb oo hadda aan ku sugannahay waxbaad ka dhigtaa ayada laftirkeeda waxaa la leeyahay jaamacadaha laftooda dhalinyaradii ma baraan farsamooyin kale oo aan ahayn waxyaabahan kale oo caafimaadka sidoo waxyaabahan kale oo ay ku shaqaysan karaan markii ay jaamacadihii ka qalin jabiyaan ay banaanka uga shaqaysan karaan bal arrintaas ayada laftirkeedu in jaamacadaha lagu kordhiyo ma tahay in farsamada gacanta oo kale ama dhalinyaradii wax la baro ayada laftirkeedu ay kaga maarmi karaan haddii xitaa aqoontii sida aad sheegtay ay shaqay weysay okay waxbarashada marka ay heer jaamacad soo gaartay markay heer secondary tahay iyo elementary markay tahay intaba waxay ku shaqaynaysaa waa qorshe dawladeed ministerialka ay hoos timaada waxaa laga rabaa inuu sameeyo qorshihii dawlad goboleedyo la sameeyay heer dawlad goboleed waxa laga rabaa policy ay leeyihiin waxay sameeyeen constitution dhan oo wasaaradda waxbarashada ee galmudug ay leedahay maanta oo wax ku qeexan yihiin raadad ku yaalaan raadad laakiin raadadka in la dhaqaajiyo oo baleen loo sameeyahay dhowr arrimood ay ku xiran yihiin arrimaha koobaad waxaa ah in dhaqaale la helo wax lagu nafido dhaqaale loo helo wixii dhaqaalaha waxa ka horeeya inaad taqaano adigu inaad wax kala xulato oo tiraaho anaga muhiimadda ballaaran waxaa noo leh hee meherada noocan iyo noocan iyo noocaanaha gaabisa laguna heli karaa number badan oo dhalinyaraha inay shaqo ku helaan dalkiina horumar uu ku gaaro marka meheradan ayadaa ayaan qorshe u samaynaynaa sidii loogu heli lahaa dad professional oo ka shaqeeya oo sida hadda su-aashaad ii weydiinaysaa arrintaas waa qorshihii ministerialka ah inay ka timaado soo jeediya ama jaamacadaha privateka isku daygooda wuxuu ku yimid dhaqaaq oo ah personality iyo samafal qaar ah iyo hadda maalan dhuusamareeb ku taala majoritigoodu waa samafal shaqaday ku jiraan percentage ay wax qaadayaan ama maba qaadayaanba maxayna qaateen waxay qaateen maadooyinka hore oo awaliga ah oo bulshada baahidooda u badan tahay horumarinta deegaankeedana caawin weyn ka leh caawinad weyn ka gelisanaya sida caafimaadkii sida maamulkii sida dhaqaalihii waa meelaha loo badan yahay bannaan aad u bannaan oo bulshada hadda laga rabo dhaqaaqeeda meelaha kale ee la mid ah professionalka مثلا waxa meesha yaala faculty ahaa muxuu ahaa xoolihii iyo beerihii maxaa arday badan uga soo bixi waayeen ama loo aadi waayeen dawladda qorshaheedii oo dadka lagu kala jihey lahaa oo la dhihi lahaa jaamacadda intaanu arday waa in la baraa xoolaha intaana waa in beerihii la baraa intaan waa in industry la baraa warshadihii la baraa intaan say isu baalansi gareeyaan arrimahaasoo dhani qorshaha dawladdana waa la maqan yihiin dadkiina xulashadiisii wuxuu noqday wixii ay hadda indhahooda hore ka arkeen
waxay u jeedeen u muuqday caafimaad u muuqday dad xogaa shaqaynaya narsiga iyo okay caafimaad isku qoraa qof walba okay xafiisyadii maamulaa laga sheegay kulleed waxaan isku qoraa public admin isku qoraa kulliga waxaan isku qoraa qaybaha maamulka arrimahaasi marka falgalkii dhalinyaraduna waxa hor muuqday ku dhaqaaqeen waxa marka dahsan ee gadaal jira ee mustaqbalka loo baahan yahay energy leh warshadihii leh mechanicalkii leh kan leh kaas leh waxa soo dhani waxay la maqan yihiin in qorshana la helo مثلا هذا هدي اللي يراهدو دولة دحي qorshaha dhalinyarada ay ku kobcinayso inay shaqo helaan haday koow ka dhigaan saaka waa huba in la helayo dawladdu haday qorshe ka dhigto dawladda dhexe qorshaha sameynay waxay leedahay dawlad goboleed kasta haday hore u lahayd midii lahayd is okay midii aan lahayn waa in laga helaa kulliyad oo lagu barto muxuu xirfadaha xirfadaha lagu barto college xirfadaha lagu barto in laga sameeyo dawlad goboleedaha hore u sameystay jiro hana qaad wuxuu leeyahay kuwa ay eber tahay waxay hayaan arag si la galmudug oo kalena way jiraan iyo hirshabelle iyo kuwa gadaal mar dambe la sameeyo waxa ma hayaan kuwaas marka waxay loo baahan yahay in la yiraaho ilow ila hela okay haddana marka waxa jira ku tiirsanaan qolaba maxay u badan tahay wax soo saarkeeda iyo bii'adeedu maxay u badan tahay dawlad goboleedka galmudug iyo hirshabelle ma isku qorsha laga qaadanaya waxbarashadooda qolaba maxay u badan tahay inay ku tiirsanaadaan hirshabelle webiga maraha oo xoog leh baarihi inay ku tiirsanaadaan xoogooda u badan yahay idan dadkii wixii la bariyay waa inay baarihi u bataan oo baaruhu hana qaadaan waxbarashada baaruhuna hana qaadaan okay galmudug maxay ku tiirsantaa u badan tahay xoolihii waa inay u bataan iyaguna oo shaqadii xoolaha ay aadaan oo xirfada looga dhigaa taasina waa qorshaha laga rabo dawladdu inay u yeesho hanaqaad u yeesho qorshahaas oo noocaas oo dadka ay ku tiirsanaadaan haddaan intiiba marka jirin raadad la raacaa jirin maxaaba hortaagan oo imtixaana oo taagan goboladiiba xor maaha majoritigoodii oo dhaqdhaqaaqii la rabay lagama samayn karo marka hadda dawladda jirtaa maxay koow ka dhigtay qorshaheedii koowaad maxay ka dhigtay horta hore nimanka la yiraahdo shabaab aan xagga dhigno banaanka iska dhigno waa qorshihii koowaad ay u tahay soo maaha qorshaha labaad ee xigaa muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa in la yiraahdo shaqo abuur waa in koow laga dhigaa priority 1 oo laga sii dhigaa hay maxay caafimaadka iyo waxbarashada shaqo abuurkooda xoog ha loo yeelo waxbarashadooda iyo maxay beerihii iyo in loo yeelaa iyo muxuu xoolihii iyaga oo dhalinyaradii lagu wacyigeliyaa la yiraahdaa qof walba deegaankaaga waxaan u badan baro waxaana fiican okay sidee loo wacyigeliyaa su'aasha dhalinyaradii oo loo jeeyaa dhalinyaradu waa dadka ugu fudud oo wixii la yiraahdo social orientation ama wacyigelin bulsho oo muuqda ama meediyaha ka muuqdeen ama gabayha ku muuqdeen ama wax kale ha ku muuqdeen ama heesaha laga dhigo ama wacyigelin obinaha laga dhigay dadka ugu dhow oo lagu infil wasaaray kara waa marka dawladihii hore maxay ku sameey jireen beeraha ayaa la amaanaya wabiga kanaal ka soo jeexnaya kuleeliya haraadku oon beelaya hawsha kulliya dugaya dadaala hawsha kulli waxna loo qaadi jiray 71 iyo 2 iyo markaasaan la cararayna badeelka oo ciid rogaynay dhalinyarada markaan ahay fiiri marka dhalinyaradii marka waxay ku hana qaadeen iyagoo maqlaya war beeraha galaay haddaan يا بغفق لين هدان فعين فارك ما بحينو فعين قاري مينو هيسا كلا يهدساسو كلا لو وضا قاداي marka dadkii jahayntiisii iyo wacyigelinteedii oo loo muujiyay oo dhalinyarada lagu jeeyo dooray iyana leedahay doorkaas isna waa maqaya ma muuqdo hadda ma muuqdo ayadoo wixii iska simbo aamusan oo saan la iska yeeldo daliigana kacdoon oo arintii xoog u yeelahay ma imaanayo saaxada professor waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sidoo kale markaad eegto dhinaca dhalinyarada iyagu ma yihiin kuwo u diyaarsan ama ku dadaalaya inay shaqo abuurtaan ama waxa jira dhaqanka Soomaaliyeed marka dib u eegto in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka faanayaan shaqooyinka qaar ka faanaan oo iskala weeyhiin iyagu ma yihiin dad raba ama shaqada ku faanaya mise waa dad iskala weyn shaqooyinka qaar shaqo iskala weynaan ma jirto dhalinyarada waxa haga
xilliga indha furashada wixii hortiisa yaaluu bartay waay ninka dhallinyarada oo jooga dhoobooy oo beeraha ku dhex jiraahay markuu gaaro 12 15 intaanu gaarin wuxuu ku indha furanayaa ma jiro cunug halkaa jooga oo aan aqoonin abuurka sida beerta lagu rido abuurka marka yaambada loo godka inta lala ekaynayo waa yaqaanaa cunug kasta wadahooda ku koray kan galmudug ku korayna yaambo weligiiba ma qaadan inada inuusan ka qaadin dhacaysa marka labadoodii isku majority ka noqon maayaan isku bisayl ka noqon maayaan marka beer laga heli doono kaas haddii la yidhaahdo hashaasa caano leh orod soolis kan dhoobay ku koray weliga hal ma arag waxaa laga yaabaa meeshuu ka imaan lahaa hasha meesha laga lisay istaagi lahaa oo haaneedka meesheedii iyo waxa oro lahaa oo lugta inta qaatan kale ku aadi lahaa inuusan bagaranayn waxna ka oqon meeshii gadaal inta ka soo istaago inuu hasha saynteedii istaago haraati la turtaa dhici kara marka cunugu muxuu ku hana qaaday meeshuu joogay muxuu ku indha furtay yaa xukumaysa wax kaloo ceebaho dhalinyaradu leedahay lama arko haddii uu ku hana qaado iyadoo dadkii isdilayaan oo kala wada wato ستايلka runta ah oo qaadanayo moodaya inay wax fiican tahay inuu ka helo waay markuu 12 gaar si aa ku leeyahay si aa ku leeyahay waa ku hara qaadaya waa khalaas fiiri marka haraqaadka cunugu markuu aaba dhaafo aabihiisa la soo koobsaday xabadihii dagaalkii oo dhacaya reerkii oo dhan baa saa u sii dhex maray 30 sano ay socotay cunugii waxa dhashay kii ku dhashay baa wax sii dhalay kii wax sii dhalay baa saddexaad markaas waxay yeelanayaan dareen maskaxda u guura oo arrintu ay maskaxda ku yeelato saameyn attitude dareen ku yeelato oo ku koobanta cajaladahan ugu duubmeen ka dhaqan ahaan maalin dhawata hotel la qarxiyay halkan xamar markii ay barbaartu soo galeen wixii la qarxinayo lagu xabqo qaadi markii la saddex cunugoo yarada hooyada xagga uga carartay afar jira u weynaaba laygu yiri iyo ku xiga iyo midkii saddexaad oo saddex jira kii u ronaya gacanta daqabto musqul la galay markaas musqusha waa iska xiran baxirta muxuu garanayaa cunugan wuxuu garanayaa xabada iyo qaraxa iyo qacda dhacay hadaad meeshaas weyn oo qolka gasho in lagu yimaado dhici karto laakiin musqusha waa musqul cid soo gali mayso okay haddana hoos ka xirun garta haddana wuxuu gartaa hal inta shiidadu taagan tahay ma malaynaysaa midka Yurub ku dhashay oo ku koray asagoo 30 jir qaacatiisa haday ka yarto dilaarba mar u dhici lahaa maanta dhabar dhinac u caray lahaa ilaa looga yimaad meesha wax ma la yimaadeen xikmada uu isku badbaadinayo kan yar afar jirkaana waxa u fududeynaya maxay waxa u fududeynaya bi'adu ku koray oo noloshii uu ku koray aabihi ku koray oo hooyadii ku kortay qacdu kuma cusba iyo maqalkeedu dhigihiis maalin walba maqlaaya qacd sheekahana waa u maqlaaya marka qacdi ma dhacday ha wax culus oo balaaye ah oo qubqac oo aan wax dambe rajo sugayn ma qaadanaye wuxuu qaadanayaa wax inuu isbadbaadi karo oo bal isku dayo marka cunugu xagee ku kortay xagee ku haran qaaday iyo xukumaysa way professor qaybihii dhexe barnaamijka fiyaadii fagaaraha ayaan maraynaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ilaah waxa laga shaqaalaysiiyo iyo hababkooda maxaan ka naqanaa iyaga ilaah wax laga shaqaysiiyo shaqaalaysiinta ilaah waxa weeye saddex arrimood baa hadda ilaah shaqaalaysiinta ka socota mid waa private option oo qofka shakhsiga qof kale shaqada siinayo waxay ku xirantahay waxaas uu xuranayahay shaqada uu dirsanayo qofkan professional buu yahay haddaanay wax professional uu rabin xoog ma leeyahay oo ku fuliyo wixii la rabay kaasi waa suuq joogtii iyo dadkii dhalinyarada ahaa oo iyo xooggiisii inuu ku xoogsaday gacantii shaqo kala timid oo dhanka dawladda ah dhanka dawladdu meesha waxa laga rabaa qofkan marka loo dirayo inuu xirfad ahaan loogu diray meesha arrintaa waxa ku jira musuq badan oo ku dhex jira lama yaqaan xirfadii in sida rasmiga ah ay u tahay بعدما قابك لو قادنيا او سنادم حلال اهين او امتحان iyo transparency aanay meesha imaaneen iyo tartan uu sa imaaneen professionkii leeyri inta waxa la rabaa 20 qof oo shaqada noocan qabato shaqadii waa la yaqaan qofkan professionkii laga rabay oo academic kale oo shahaadada waa kan wad ma dhaba oo kuwii ruuxoodiya la qaatay waxa xukumi lahaa ma dhaba oo imtixaankii la wada galay 20 ka jago waxa imtixaanka maanta u soo geliyay 500 oo qof markay wala baahan yahay dhalinyarada markaas kaalinta in qof walba iskiis intuu u qanco xalaal
inuu xelay iyo inuu wax waayaba isagoo dareen fiican buu uu noola lahaa saa kana dhaqaaqi lahaa haddii taa la waayey ay galagalay iyo hoos u guur tahay arrintaasi marka lama hubo inay tahay wixii professionalka saxda in la helay inay leeyahay lama kala yaqaan taasna waa mid saddexaad ah jirta caalamka sida World Bank iyo meelo iyo hay'adaha caalamiga ah ayaa shaqo abuur waxay yiraahdaan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe intaas wasaaradda hebla 10 qof loo qoro lacagta anaga bixin wasaaradda hebla inta 20 la qoro waa la qoraa dadkii shahaadooyin iyagu shahaadooyin waa la geeyaa ayaga laftirkoodu inay sidii xalaasha ahayd tahay iyo in kale lama kala yaqaan laano meel imtixaan lagu qaadayo leeyahay World Bank ayaa soo dalbaday 20 qof oo galmudug muxuu ahaa shaqadaasi wasaaraddaas u shaqaynaysa ama 10 qof oo imtixaan laga qaadaa weli ma aanan maqalmanahayn marka haddaadan arag oodan haynin ee hoosay tahay inay si xalaal u dhacday oo qofkii ku habboonaa oo professionalka ah oo shahaadadii xalaasha watay helay iyo in kale cidina kale ma sheegi karto saddexda meeloodan afarta meeloodan saddexda arrimoodan ka arkaan wada xaaladda shaqada goobaha shaqada ka raadinta iyo shaqo helidda waayahay dhinaca dawladda markaan eegno fursadaha dhalinyaradu ay ku leeyihiin dhinaca shaqaalaysiinta ma jiraan fursado ama waxyaabo gaar ah oo iyagu dhalinyarada Soomaaliyeed oo laga tixgeliyo oo la yiraahdo waxaas dhalinyaradan oo lagu ogyahay ma jiraan ilaa hadda okay shaqada marka la leeyahay shaqa la qoraa dhalinyarada baa la qaataa shaqaalaha rayidka oo kale dhalinyarada marka la qaadanayo shaqaalaha rayidka marka laga hadlaa cidda iclaaminaysa iyo haday heer caalami tahay iyo kulligood oo dhan age ku qoran professional waa qoraya qofku da'diisu waa inuu inta ka yaraan waa inuu waxa barto shahaadada wataa ku wada qoran marka qaabkaasi in sidii ay haleeshay in kale cid dabagal ku sameynaysa maanan arag laakiin waa jira qaabkaas waa jiraan waayahay waxaan rabaa professor inaan ku weydiiyo arrimahaas aan sheegno sidee wacyigelin guud loo sameyn karaa oo taas oo ah in dhalinyaradii ayagu laftirkooda ay shaqo abuurtaan aqoontii ay barteen oo dalka u barteen ay uga faa'iideeyaan ninka qofka dhalinyarada hadii la yiraahdo dhalinyaro shaqo abuuro hawsha waa la kala leeyahay ninka qofka dhalinyarada ah waa HK shaqo u abuurto horta waa inuu indha furtay qof indha furtay oo dhalinyarana waxa ugu yar 25 jir 30 jir inta u dhaxaysa ayuu ku indha furan karaa indha furashada waxaan ka wadnaa wax dhinacyadiisa ka dhacaya iyo wax suuqa ka socda iyo xaaladda isku miisaamayo uu markaa wuxuu u yeelanayaa galaangal markaasuu helayaa qaabka uu dhaqaaqayo oo dhihi karo waxaas haddii la siiyo waxaasan ku abuuran karaa waxa la yiraahdaa waxaan horumarkaa marka cilmiga loo fiirinayo waxa la yiraahdaa mental chemistry waa dareen maskaxeed oo chemistry analysis la sameeyay marka analysis markuu dhaco dibadeeda waxa loo bedelaa practical hadana مثلا هذا مقالة أن شغل الإسلام عن الله فرفرست عاقل كويس تمام المير مساكين هايست وحكى فكرة مركورة سلاء المها $5 أو عمتدو ذا أدوه شيء يوميا $5 ما بقول سحنة وحأصوب حيسة إنه يقضه 8 عاق أو عانة قيلة إنه يقضه أوكي 8 كي مقيت شوغان 8 كي وحيد شوغان هي لبعطيه $5 بردي أي شوغان وريا مالين تكوبات يقبحيه 25 ama 30 see ku helaa this is capital waa marka business ay dareenka hore wal wuxuu joogay sidee ugu helaa $5 ku helaa qorshay alifatay qorshii waxa soo baxay in ay haday caanaha gado helay $5 dibadeedna waxa soo baxay marka practical see looga dhigo practical marka 3 arrimood laga rabaa business markii practical laga dhigo 3 arrimood waa dhul iyo entrepreneur qof wax dhaqaajinaya shaqadii qabana iyo capital to invest iyo dhaqaale lagu invest gareeyo alors dhaqaalaheedu $30 noqdo waa in dhaqaalaha $30 heshaa ay ku bilaabto hawshii dhulkiina waa in heshaa mid ay u tagay dukaan walaali meeshan hortaada ma la fariisan karaa caani aan ku gaday haye dhulkiina waa heshaa very good maxaa soo haray iyadiya entrepreneur dhaqaaqay lor caani waa loo keenay meeshii ku gaday leed waa heshay marka dibad lacagtiina mid ay u tagtay ولا وقعلي 10 أماه
heblaayo adna labaad okay dhalinyaradii marka inay qorshe samaystaan oo israacaan oo waxa sameeyaan waa inay helaan fursado wax ka dhaqaaqi karaan waay xagee wax ka dhaqaaqi karaan beeray مثلا tageen oo rabeen inay sameeyaan beerta iyagu male dhulkii beerashada lahaa kulligooda dhan waxba halaysan kanaalkii webiga ka soo jeexay wax horumar uu sameeyay lama arko kanaal male male kii kale male ayagiina naaw haw male aqoon male taraktar kan loo kala yiraahdo kan wada wadi yaqaan okay number wadi yaqaan waa jira laakiin numberkii u baadi goob qorshe waxay u baahan yihiin marka guidance hogaaminay u baahan hogaankii muxuu yahay wax dhalinyaray soo baxa hee xageed joogtaan jawharaan joognaa okay waxaan u baahanahay 5 goobood oo goobtiiba tahay 10 dhalinyaro ah oo konton qof oo tiiba beera la sameeyno annagoo aan maxay hay'ad hebla ama wasaaradda hebla ama koox hebla ama baac mushtaraha ayaa 200 kun inta soo qaada oo la yimaada oo dhihi kara intaasoo dhalinyarahan aan rabaa inaan shaqo u abo laakiin kaalintaas dareenkoodu ma gaaraa waayo kuwa baac mushtarka xataa ahalnimo hadduu u sameeyo ka dareemee is very good hadduu ahalnimo u sameeyo wax la heli kara maaha war dadkaagii waa baktinayaa xabad horumar ha uga dhigine beertii inay fashaan horumar uga dhig maxay ku kaws garayne 5 cagaf soo gado oo yar yara 3 kun bay joogtaa taam halka beer ku filan isbriin rush xoog badan soo gad asagana wuxuu joogaa $70 60 meter ayuu wuxuu ka dhigayaa isbriin han rock maanta dhan webigii qarkiisii bamkii ugu xir solar yar ku xiro energy uga samee halka beerba waxa kici karaa 10 kun ma dhamma halkii beer waxa kicinayo ayagii baa jooga shaqadii bar u tareen garay qabsada shaqada 1 and 2 and 3 waryaa daraynaya oo dhalinyarada dib ugu soo noqonayo oo le waa kan marka dan guud oo wax lagu dhaqaajiyo waa inay timaad oo heer governmental wax organization aan ma shaqeynayo governmental organization shaqadii qabanaya inuu jiro ministry ha aad wax rabaa waa inuu jira ama local inuu ahaado NGO oo shaqadii qabanaya waa inuu jira ama mid caalami oo xiriir waa inuu qabtaa ama dad is howlay oo businessman ama wax garadii inay ka shaqeeyaan dhalinyaradii xirfad u sameey kor u qaadaan xaaladooda laakiin waxaan ka wadaa waxa koobaad oo wax lagu dhaqaaji karo saaka anigu aan leeyahay baahitir bay leedahay caalamkana baahideedu waa taagan tahay waa beeraha annaga hadda baastadan cunayna xageena lagu keenaya kulligeed maad in Turkiya ku taal Turkiya uma baxdo qamadidu uma bixin 1 milyan iyo bar 2 milyan oo metrik tan ayuu wuxuu ka keenayay Ukraine markaas uu qaarna bur u bedelay qaarna ka dhigay cajiin qaarna ka dhigay baasto annagana iyadiiba noo soo godo halka noo keenay waayahay haddii Ukraine dagaal ku dhacay dagaalkii waxa leeyahay adduunka cunadiisa oo dhan u saameeyay Masar aan ugu dhow halkan iyadana 1 milyan iyo 800 kun iyo waxaas ka keensanaysa oo qamadiya meel aad ma leh marka aragtay xaalad isku tashay inay joogto riigaga inta soo qaatay Sinabeen desertiga dhulka ahaa oo halkaan ahaa ay inta reeg muddo ceelal biyood ka soo saartay kulli beer ka dhigtay wabigii kaliya uma filaba war annaga goormaan inda furanayna oo aan qorshe xoog leh oo aan isku badbaadinayna la imaanayna goorma markaan mashquulka aan isku mashquulka nahay ka baxno hadda annaga isku mashquulade 30 sano isku mashquulna ama kooxan isku dilayna ama fikri aan jirin baan isku dilayna ama diin aan xalaal ahayn isku dilayna ama reernimo aan isku dilayna adiga kaalay mashquulnimada naga saa ama xil raadisan isku dilayna iyo madaxnimo iyo siyaasad marka inta waxa lagu jiraahay badbaadada dhalinyaradu ay ka badbaadaan oo loo toosaahay dad aragti qaran laha abuuri kara waa in aan duceyno ilaahay inuu Soomaaliya ka soo saaro hogaamo iyo dad wax gala oo aragti qaran leh oo dhaqaaqaya dadkana shacabkana sidoo kale laga rabaa ninka dhalinyarada 20 jirka adiga age-kaaga oo kale yaa u diida inuu aragti qaran yeesho waa inuu soo ku baraarugo yiraahdo cidina kuma maqna ceelna kuma qodnay soo inuu isxilqaan adiga qudhigaagu isxilqaan wax la imo waay kont frame hadii konton israacdo oo yiraahdo waxaasan ku dhaqaaqayna konto kala ku dayalayd konto kala waa ku dayalayd marka fadhiga laga kaco baan dhahaynaa wax kale oo sameeyna ma dhahay professor waxaan rabaa su'aashayda ugu dambeeyay inaan ku weydiiyo adigoo talooyinkaaga u dambeeyaan raacsan doona muddo 30 sano ah ku siman dalka lagama sameeynin ama wadanka lagama sameeynin waxa la yiraahdo sahanka suuqa maxaa hortaagan in la sameeyo
oo si loo ogaado dhalinyarada inta shaqo la'aanta maxaa hortaaganaya islaada marka sahanka waxa tiraahdaa hagaha oo bulshada qaybaheeda iyo mid walba tiradiisa iyo arrintaa ma u socotaa mase sahanka nolosha guuda u socotaa ee dhaqaalaha kan dhaqaalaha waa iska sigooda oo caalamiyaha hay-ada caalamiya u sameeya kan tirada bulshadana ayana sidoo kale loo raacay annagu qaran ahaan waxba aanan samaysan weli waxaan mashquul ku nahay annagiyaan kala hagaagino dadka sahamada sameynaya waa dad kala hagaagay oo qofba shaqada uu ku toosayo lagu og yahay oo qofba shaqada uu hayo lagu xisaabtamayo oo qofku shaqeynaya sharci ku shaqeynayo sharci raacayo war annaga kii xataa shaqo loo diray sharciga agyaal inuu raacaa qadiyaan looga taagan yahay hada imtixaan weyn waay war adiga shaqadana lagu diray sharcigaana ayaa lagu fulinaya sharcigan ku fuli ya qaali nagu ah in la isla helo marka arrinta ah bulshada tiradeeda iyo qaababkeeda iyo waxeeda wax guud mooyaane wax gaaray hadda ma imaan laakiin hadda waxa taagan oo jirtaba marka la yiraahdo waxa la aadayaa one man one vote ama qof iyo hal cod la aada waxa qasab lagu yahay tuulo walba iyo dadka jooga in la register gareeyo lana tiriyo eedkiisa iyo da'diisa iyo wixiisa dhan markaas aan ugu horeysa inaan iskala aqoonsano qofba meeshuu joogana la garto xuquuqda loo siman yahay oo wax ku kala qabsanana aan helno iminka waxaa halis ku jiraya Soomaaliyeeyaan ayna kala aqoon hadda waxaan isku aqoonsanaa Soomaali luqada Soomaaliga qofku ku hadlaa wabas war hindi af Soomaaliga Sooma barakaro saacadaas waxa ka dambeeya Soomaaliya uu noqonaya idan wax lagu kala aqoonsado oo dokumenti waa yar yihiin inta haysataa in haysataa way jirtaa laakiin waa yar yihiin marka arrinta ah tirada iyo tira koobka iyo cadad boqolada ay tahay iyo deegaanba waxa ku nool iyo deegaanba waxa ku fiican in loo ay ku shaqo looga dhigo iyo loo train gareeyo iyo waxa soo dhani waa qabyanaga yihiin gacantan hore oo ah bal inaan nabad helno oo aan isdayno oo dibadeed dagaaladu naga yaraadaan oo dibadeed markaas aan nolol fiican hunguriyeyno oo markaa qofba uu ku taxalluqo wuxuu nolol ka raadinayo bal intaa ilaahayna gaarsiiyo talada ugu dambaysa aad ku soo gunaanada maxay tahay aniga waxaan ku soo gunaanada lahaa dadku waa da'da laga hadlayo markay dhalinyaro tahay xoogoodu waxa la yiraahdaa dhalinyarada waxa loogu tiirsan yahay wixii xoog ah wixii talo iyo xog ogaalana dadka iyaga ka khibrad daroon oo nolosha hore u soo maray wax badan laga beegsada meesha hadda doqonnimadu ka taagan tahay dhalinyarada maaha anigu meeshan waxaan saarayaa dadka jiilka ka weyn oo da'da oo la rabay inay wax lagu naaloodo dhalinyaradu ka faa'iido ku hibaado ay la yimaadaan yaa ayaga halkaas ay qabyo ka tahay arrintu dhalinyarada xaggeeda ay qabyo ka tahay ma oran karno waayahay qabyadaasi marka hadday taagan tahay dhalinyaradii ma nirahnaa ciidaad isku halaysaan oo da'aho in ka horeysa oo idin laxwanaysa oo in wax laga dhaxla rabta oo dhalinyaradii meeday leh oo dhalinyarada doorkooda xalaalaynaysa oo dhalinyaradii wadda rooto u jeexaysa oo dhalinyaradii nolosha u tababaraysa intaasi hadday meesha aysan muuqaalkeedii hadda isa saareenaysa muuqan waa ku duceeyna ilaahay in ummadda ka soo saara dad saa u fakaraye adinka qudhigiin u dhaqdhaqaaq inaad samaysaan dhalinyarada laga rabaa inay dhaqdhaqaaqaan oo maxay ku dhaqaaqaan falxumadaba waa ku dhaqaaqay marka lagaala tiriyo lagu yiraahdo wararkaas Abdullaahi noo aaday qoriga qaadee falka cawjka intaad aadi lahayd fal wax soo saar lixaqi ka fakar oo nololeed isaga okay fal kale ayaad aadeen qaar baad aragteen inta dooni raacay oo Mediterranean ka gudbay oo Yurub galay oo sii cararay oo meel kale tagay kuwa diyaarad raacay Brazil ka dhacay muxuu ahaa halka iyo Latin America ka soo galay xuduudii Mareykanka kuwa kale waxa soo dhani hadda waa la isku biya keenay weelashii ay awal rabeen nimanka muxuu ahaa reer galbeedka oo rabeen dadka inay ku soo dhaweeyaan waxay ahayd inay ka helaan shaqo xoog inay ka helaan xoog dadka shaqeeya inay ka helaan inafisana xoogii intii tagtay baa ku filaatay in ka badan ma qaadan karaan marka shuruucdii awal ay ku xalaaleeyeen inay soo dhaweynayaan dadka shuruucdii hadda waa gaagaabinaya albaabadii waa xirxiraya waa la adkeynaya waxa la gaaray in hadda la isku haysto Mediterranean-ka marka la sii gali rabo
maalin dhow waxaan maqlayay bare ministerka cusub oo Talyaaniga oo qayliyaya iyo Faransiiska oo asna qayliyaya oo ki Talyaaniga oo leeyahay aniga liima soo gali karo doomahan iyo waxaan oo marka meel dhexe taagan oo leeyahay war ka daaya dadkan yaan si la yeelinay oo kuwa West Africa iyo kuwa muxuu ahaa Central Africa u badan yihiin dadka yaacada ku tagay meesha oo qaar anaga Libya Farantin oo sii maray wixii percentage badan ah dhimanayo ku qalaya maxaa wixii la dhigi jiray odagi magaca loo bixin jiray lacagta laga qaadayo lacagta markii bixinayo magafan soo marnay sanado hore hadeer magafi weli xilkiisa waa marka aniga ayaa lagu mashquulin ee doon raacdo si carartee ha lagu mashquulo oo dareenkaaga u soo jeeday dhalinyaro inaad tiraa aniga qalankaygu cidla maaha aniga qarankayga waxbaan ka qabsan karaa aniga qarankayga baahida waa kala diriri karaa anigu qofaan ahay anigu waa noolahay waayahay noolaha dhan ilaahay muxuu ku barakeeyay noolaha dhan noolaha geedka caleentiisa ayaa la wada cunaa haddii caleentu ay maqan tahay noole ma jiro ama dad ha ahaado ama ha ahaado cayayaan ama dugaan ka ahaado kulli noolaha geedka caleenta martuu leeyahay haddii geedka caleenta lahaa aadan ka wahsan oo tiraa geedkan caleenta lahaan ka shaqaynaa anugu oo nool ka raadina asbargo noloshii waa ka gaaray waa la hubaa inaad ka gaaray marka dareenkooda badda intaa la eg wax ilaa hadeer ka fiishin ka samaynaa male saakay haddii la yidhaahdo galguduud josamareeb galmudug meeshaan adigu la hadlee okay 20 nin oo dhallinyaraha keen oo dareenkoodu fiican yahay lacag yar ayaa loo dirayaa lacagtaa yari dibadeedna waa lacagta intay amayaan wax ku qabsan lahaayeen soona xara dheeraanu geynaynaa talaajada looga abuuraa soolareera lagu xiraa lacagta doomihiina wasaaradda noo haysa oo free ah warardo kalluumaysood mid halkan ku shubo dibadna galmudug bar malayga in la cuno oo ka raqiis ku gat oo bar nutrition wise cuno in la cuni karo oo hilibkan arigu ka daba wareegaya geeliyo fardaha iska daayo oo yareeyo ilaa kuwana si dabar go'ayee halkaanay tuban tahay ajaanibti baa naga dhacaysay marka goobaha maran oo la rabo in lagu dhaqaaqaayo waa goobaha annaga galmudug fishing xoolo dhaqashadii iyo fishing xoolo dhaqashadii waxay u baahan xooluhu in loo abuuro caws ay ku jiilaal baxaan iyo maxay in caqligu soo laabto la aqbalo in hareeyon la xiro oo leeyahay roobkan la daaqi maayo intaasoo kiiloomitir intaa isku weer halka ay xagga kale aad jiilaarka u baxsanaysaa ka caagan waa la xirmayna leeyahay xilliga maxamed saad wala sameeyay jir qaaliban ku ahadana baahid u ballaareeda taagan qoladan maamulaysa mooyi meel ay ka dhaahan yihiin ayaga qudhooda dhibka haystaa waxa weeye badagaal bay ku jiilayeen ka shaqeeyaan iyo shabaab la dir mase bulshadii ay kala celiyaan mase bulshadii waxay ku hibaado xoolahoodii u sameeyaan keebaa horeeya oo halbeega hore leh keebaan laga maarmi karin oo tahay in la dhaqaajiyo ma kuwa kale ku horgaan baabku qorshaha kale waxa soo dhibaha Allah naga wada furtay baa muuqanaya laakiin dhalinyarada waxa u furan albaabka ah dareenkooda inay soo jeediyaan oo aysan qurbo cararka iska daayaan dalka maxaad ka qabsan kartaa ka fakaraan aad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa Professor Axmed Salaad Kulmiye oo barnaamijkeena fiyaadii fagaaraha martii uu ahaa mudan Professor waa mahadsantahay